qorshe loogu magac daray xasilinta nabadgelyada Soomaaliya oo in muddo ah khubaro military iyo kuwa dhinaca ammaanka ku takhasusay ay tabantaabinayeen ayaa maanta waxaa qalinka ku duugay madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. saxiixa dukumiintigan ayuu madaxweynuhu wuxuu ku hor saxiixay madaxda ugu sarreysa dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kaleba. Axmed Nuur Cali Maxamed ayaa warkan Muqdisho nooga soo diray. qorshaha nabadda iyo xasilinta waddanka Soomaaliya oo in ka badan muddo 3 sano ah khubaro dhinaca militariga ah ka shaqeyntiisa ay ku howlanaayeen ayaa madaxweyne Shariif Sheekh Axmed maanta saxiixay kadib munaasabad ballaaran oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda ku meel gaarka Soomaaliya xubnaha labada gole ee dowladda saraakiisha ciidamada madaxda safaaradaha ajnabiga ee Soomaaliya jooga iyo mas'uuliyiin kale taasi oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. qorshahan oo ay soo diyaariyeen saraakiil Soomaaliyeed oo taageero ka helay wasaaradaha arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay in la soo dhameystiray dhawaan isla markaana lagu xasilin doono ammaanka guud ee Soomaaliya 4 sano ee soo socota. saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowladda ku meel gaarka Soomaaliya oo ay weheliyaan wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga oo ka hadlay madashii lagu saxiixayay qorshahan ayaa waxa ay sheegeen in qorshahan uu yahay mid dhiirigelinaya dhismaha ciidamada dowladda ku meel gaarka Soomaaliya isla markaana lagu xasilinayo ammaanka guud ee waddanka. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali oo ka hadlay halkaasi ayaa waxa uu sheegay in qorshahan oo meesha ka saarayo qulqulatooyinkii dagaalada ee Soomaaliya ay ku jirtay 20 sano ee la soo dhaafay waxaana uu intaa ku daray in saxiixa qorshahan uu qayb ka yahay xasilinta waddanka loona baahan yahay in guud ahaan waddanka la xasiliyo. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa dhankiisa isna hambalyeeyay qorshahan isagoona sheegay inuu wax weyn ka tari doono xaaladda amniga ee Soomaaliya. ugu dambeyntii ayaa madaxweynaha dowladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo saxiixay isagoo heshiiskan isla markaana ka hadlay munaasabadaasi waxa uu sheegay in qorshe kasta oo loo dejinayo dowladda Soomaaliya oo ka horeeyo kan amniga loona baahan yahay in 4 sano ee soo socota si weyn loogu maamulo qorshahan ammaanka guud ee waddanka Soomaaliya. qorshaha nabadda iyo xasilinta waddanka Soomaaliya ee maanta uu qalinka ku duugay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa tan iyo sanadkii 2009 waxaa ka soo shaqeynayay saraakiil Soomaaliyeed oo ka tirsan dowladda ee Soomaaliya. Axmed Nuur Cali Maxamed